Taariikhdu waa 3 Luulyo sanadkii 1972, maalin Isniin ah, abbaare 8 subaxnimo oo gow ah. Fagaaraha Iskool Booliisiya ee degmada Xamar Jajab waxaa ka dhacaya dilka 3 sargaal oo ka tirsanaa ciidankii xoogga dalka Soomaaliya, kuwaas oo ay tooganayso isla dowladdii ay ka tirsanaayeen. Mid ka mid ah raggaas waxa uu ahaa aabbihii kacaanka 21 Oktoobar iyo maskaxdii ka dambeysay afgembigii dalka ka dhacay 1969 ee uu xukunka kula wareegay Generaal Maxamed Siyaad Barre. Ninkaas aan ka hadlayo waa Generaal Salaad Gabayre Kediye, sargaal sare oo ka tirsanaa ciidankii xoogga iyo ninkii mar ahaa gacanta midig ee Maxamed Siyaad Barre. Haddaba maxaan ka naqaanaa taariikhda Generaal Salaad Gabayre Kediye? Maxayse tahay sababta ka dambeysay dilkiisa? Ku soo dhowaada taariikhda Generaal Salaad Gabayre Kediye. noloshiisa waxay ka bilaabantay degmada Xarardheere sanadkii 1933, halkaas oo uu ku soo barbaaray xilli Soomaaliya ay ku jirtay gacanta gumaystaha. Salaad Gabayre waxa uu ka mid noqday dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku haminaysay inay dhisaan ciidan xooggan oo qaranka u adeega. Sanadkii 1954 waxa uu u safray dalka Talyaaniga si uu uga mid noqdo 14 sargaal ee ugu horreeyay ee Soomaaliya tababar militari u qaata. Halkaas ayuuna ku bartay xirfadaha aas-aaska ah ee ciidanimada, hoggaaminta iyo xeeladaha dagaalka. Kadib markii uu ku soo laabtay Soomaaliya, Salaad Gabayre wuxuu sii waday horumarinta xirfadiisa. Sanadkii 1956 wuxuu tababar kale u tegay dalka Midowgii Sofiyeeti, gaar ahaan dugsiga France Military Academy oo ahayd mid ka mid ah dugsiyada militariga ugu sarreeya adduunka. France Academy waxay caan ku ahayd bixinta aqoonta militari ee casriga ah, gaar ahaan xeeladaha dagaalka, hoggaaminta iyo taliska ciidamada. Tababarkan ayaa ka dhigay sargaal aqoon iyo waayo-aragnimo dheeri ah leh, kana diyaarsan dhan kasta oo ciidannimo. Waxbarashadiisa iyo tababaradiisa oo dhammaystiran ayaa keenay inuu noqdo mid ka mid ah saraakiishii ugu xirfadda badneed ee Soomaaliya, isagoo loo aqoonsaday inuu leeyahay karti hoggaamineed iyo mid geesinimo. Markii uu ku soo laabtay Soomaaliya, Salaad Gabayre waxa uu ka mid noqday ciidamada qaranka Soomaaliyeed, isagoo qabtay xilal muhiim ah. Sanadkii 1964 wuxuu hoggaaminayay dagaal ka dhan ah Itoobiya, dagaal ka dhacay deegaanka Togwa Jaale, halkaas oo uu ku muujiyay xeeladiisa iyo kartidiisa militari. Xirfadiisa iyo aqoontiisa ayaa ka dhigtay mid la aamini karo oo hormuud ka noqda qorshayaasha ciidanka iyo amniga dalka. Intii uusan dalku gelin marxaladda afgembigii 21 Oktoobar, Salaad Gabayre iyo Maxamed Siyaad Barre waxay lahaayeen xiriir dhow oo saaxiibtinimo. 21 Oktoobar 1969 ciidanka militariga ayaa afgembi ku sameeyay dowladdii Soomaaliyeed, waxaana talada dalka la wareegay Maxamed Siyaad Barre. Salaad Gabayre wuxuu ahaa maskaxdii ka dambeysay abaabulka afgembigaas, waxaana markii dambe loogu yeeray aabbihii kacaanka. Si kastaba ha ahaatee, xiriirka labada sargaal kadib afgembiga ma sii ahaanin mid deggan. Sanadkii 1972 Salaad Gabayre waxaa lagu eedeeyay inuu qorsheynayay afgembi ka dhan ah dowladdii militariga ee uu hoggaaminayay Maxamed Siyaad Barre. Waxaa la xiray isaga iyo saraakiil kale, waxaana la saaray maxkamad militari oo go'aan adag ku gaartay. Bishii Julaay sanadkii 1972 Salaad Gabayre Kediye asiga iyo 2 sargaal oo kale waxaa lagu fuliyay dil toogasho ah fagaaraha Iskool Booliisiya ee degmada Xamar Jajab. Dad badan ayaa ka soo qayb galay iyagoo daawanayay sida wax u dhacayeen, waxaana la sheegay in dhacdadan ay ka dhigtay taliska militariga mid sii adkaaday. Geeridiisa waxay noqotay calaamad muujinaysa sida awoodda, siyaasadda iyo kalsooni darradu u beddeli karto nolosha qof iyo mustaqbalka dalba. Waxaana la xiray xubno badan oo qoyskiisa ka tirsan, hantidoodina waa la wareegay. Dad badan ayaa aaminsan in dilkiisu fududeeyay in Siyaad Barre xukunka sii hayo muddo ku dhow 19 sano. Generaal Salaad Gabayre Kediye wuxuu ahaa sargaal geesi ah, aqoon iyo xirfad leh, oo door weyn ka qaatay dhismaha ciidanka casriga ah ee Soomaaliya iyo afgembigii 1969. Inkastoo noloshiisu ku dhammaatay si murugo leh, taariikhdiisa waxay weli tahay mid lagu xasuusto laguna barto geesinimadiisa, kartidiisa iyo sida uu u saameeyay siyaasadda iyo militariga dalka. Sheekadiisu waa xasuusin ku saabsan sida geesinimada, aqoonta iyo kartida qofka ay u saameyn karaan taariikhda. Waxay sidoo kale muujinaysaa sida awoodda, siyaasadda iyo kalsooni darradu u beddeli karto mustaqbalka qof iyo dalba.
Salaad Gabayre wuxuu ku reebay qalbiyada dadka Soomaaliyeed raad taariikhi ah oo aan la iloobi karin, waxaana halkaas ku eg taariikhda Jenaraal Sare Salaad Gabayre keliya.